wafdiga ballaaran ee ka socday dalka Qatar ee maanta soo gaaray garoonka Cigaal International Airport ee caasimadda Hargeysa waxa halkaasi ku qaabilay kuna soo dhaweeyay wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ahna kusimaha wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland waxaana uu ku qaabilay garoonka Cigaal International Airport ee caasimadda Hargeysa wafdi ballaaran oo ka socda dawladda Qatar oo uu hogaaminayo ergeyga gaarka ah ee u qaabilsan wasiirka arrimaha dibadda arrimaha qaaradda Afrika soo dhaweyn iyo kulan kooban kadib wafdiga ka socday dalka Qatar waxa si toos ah loogu galbiyay isla la gaarsiiyay qasriga madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliya caasimadda Hargeysa halkaasi oo ay kulan kula qaadan doonaan sida la filayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi sanadkan waxay soo taraya wufuud kala duwan ee beesha caalamka ka socda ee soo gaaraya dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaas oo la oran karo waxay hordhac u yihiin hanaanka iyo waliba saasanta siyaasadeed ee beesha caalamku ay ugu hanweyn tahay Jamhuuriyadda Soomaaliland markaana la filayo in ictiraafka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu soo dhawaado Salmaan Hebel Laambad warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Hargeysa.